بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا فاتوش فاميلي channel aad bad uma haysatay daawashada aan daawatiin ku xirantiin channelkeena please subscribe share and like channelkeena maanta maxaan inii wadaa marka maanta waxaan inii wadaa mowduucyadani ku saabsanaa familka hore waxaan uga soo sheekaynay sida waalidku u isticmaali karaan waqtigooda maantana waxa aan bilaabaynaa mowduucaas oo ku saabsan technology-ga ama aaladan oo internet-ka oo la daawado oo technology-gan ilmuhu oo daawadaan ama dadku waaweyn ama adduunka hadda haysata oo siyaabo badan looga faa'iideysto siyaabo dhibaatana u geysata community-ga dhan ama familka qoysaska siyaabo badan ugu geysata waxtarkeeda iyo dhibaatadeedu ay isla socdaan marka mowduucaas waxaan maanta uga sheekaynaynaa oo ku soo qaadanaynaa dhibaato weyn oo aad u haysata dhanka ilmaha yaryarka ah ama ha yaryaraadeen ama ha weynaadeen dadka waaweyn mar gooni baa laga hadli doonaa laakiin maanta waxa aan focuska saarayaa oo aan ka hadlayaa ilmaha yaryarka dhibaatada u geysato iyo dhibaatada ay waalidiin badan ay ku qabaan xanibaynta ay ka xanibi lahaayeen ilmahooda ay ka ilaalin lahaayeen iyo ayadoo aniga ku soo arkay waqtigii aan shaqaynayay oo aan inii sheego la shaqaynayay qoysaska noocay rabaan ba ha ahaadeen Soomaali kaliya lama shaqayn jirin qoysas badan oo kale la shaqayn jiray oo wadamo kale ka imaaday bad dhibaatada ay ku haysato qoysaska Soomaalida especially Soomaalida aniga oo ka soo arkay waxyaalo aad iiga yaab galiyay oo waliba ilmaha xaggooda ahaatay waalidiin badan oo aad ula dhibaatoobay dhibka ay ku qabaan aaladan technology-ga ama internet-ka iyo ilmahan bahalada TV-yada iyo telefoonada iyo iPad-yada ay daawanayaan TV-ga waagi hore waxa la dhigi jiray ilmaha waqti yar ha daawadeen laakiin hadda waxa aad dhibaato weyn u keenay aaladan lagu dhahay telefoonka oo cunugu ama iPad-ka uu meelaha la geliyo oo wireless-ka ah sida yacni uusan cunugu u baahnayn inuu meel uga xaniman tahay oo meel uga dhagan yahay meeshuu rabo luuqu rabo la geli karo marka waqtiyadii aan shaqaynayay oo la shaqaynayay dhib badan ayaan kala kulmay waxyaalo wadnahayga hooyo ahaan aad i dhibaateeyay oo aad aan u dhibsaday oo waqtiyada qaarkood waxa laga yaabaa haddii intaan dad la soo shaqeeyo in aan baabuurkayga intaan gala aan ooyo because waxyaalihii aan ka soo arkay iskuuladii iyo dhibka ilmaha yaryarka ay u geysato technology-ga in badan bayna igu jirtay inaan ka hadlo marka maxaan u kala qaybinaynaa waa u dheer yahay mowduucan maanta kaliya laguma dhamayn karo ma rabana maanta kaliya inaan ku dhamayn because waxaan rabaa waalidka inay ila socdaan inay fahmaan because waxa aad ku baraarugsaneen ama aad ogeyn dhibka ay geysato waxa laga yaabaa cunuga inaa iska siisid oo maanta cunugaaga iska isticmaalo because qofka marka uu ka celinayo waa inuu og yahay waxyeelada ay u leedahay ilmaha yaryarka iyo naftiisaba iyo qoyskiisaba marka maxaan u kala qaybinayaa waxaan u kala qaybinayaa waa inaan tartiib u kala dhigdhigaa si ay waalidka u fahmaan waxa aan jeclaan lahaa waalidiinta daawanaysa in ay la wadaagaan mowduucaygan topic-aygan marka aan ka hadlayo xadda ay istaagaysa because dhibka aan ka soo arkay in ay la wadaagaan waalidiinta qof kasto ay jecel yihiin waalid ah ama ku xiran ama ay yaqaanaan waalida oo og inuu ilmo haysto in uu la wadaago channelkay uu dhaha please daawo gabadhaas waxa ay ka hadlayso idinkuna sidoo kale inaa ii soo qortiin comment section-ka inaa igu soo qortiin hooyooyinka dhibaatooyinka aad kala kulanteen iyo waxyaabaha inii shaqeeya marka maxaan u kala dhigdhigi doonaa technology-ga mowduuca waxa u kala dhigdhigi doonaa number 1 maxay tahay dhibaatada uu ilmaha u geysto technology-gu ama telefoonada iyo iPad-yada la daawanayo waliba la daawanayo kaliya maaya waa in tusayaa siyaabaha wanaagsan oo cunugaaga u daawan karo iyo waqtiyada uu ku isbeen garan karo u daawanayo maxay tahay dhibka ka soo gaar cunuga miskixiyan wax kasta maxay tahay dhibka ay u leedahay waa inaana aad u fahantin maxay tahay dhibka ay u leedahay markaas ayaad ku baraarugi kartaa ka celin kartaa la dagaalami kartaa sidoo kale waxaan ka hadli doonaa waalidka laftirkooda ilmaha ku xiriira oo ilmaha leh sida ay u isticmaali karaan technology-ga iyo waxyaabaha aniga ii shaqeeya personal fatush ahaan
sida aad u isticmaali kartid adiga laftirkaaga way kugu socotaa oo hooyadii way aabahay marka aad gurigaaga joogto ilmahaaga la joogto maxaa kasta noocaad u isticmaashaa sidoo kale waxa aan la wadaagi doonaa waxyaabihii aniga ii shaqeeyay oo aan dareemayo haddii hooyooyinka ay iga daysadaan in uu u shaqeyn doono insha Allah ana ku daray sida loola dagaalo technology-ga telefoonada iPad-yada guriga yaala sida aad ula dagaali kartid cunugaagi adigoo u diideynin oo wali uu isticmaalay sidee ulaga yareyn kartaa muxuu yahay marka ma soo noqono maanta qaybta aan rabay inaan ka hadlo muxuu yahay dhibaatada uu u leedahay aaladan technology-ga la dhaho ilmaha maxay u leedahay dhibaatooyinka ay u leedahay maxay tahay iyo research-ka ama baaritaankii lagu sameeyay maxaa lagu soo helay because waxa anaka iska sheegayna ma waxa aniga faatush ahaan inta maanta inala soo istaago aan iska sheegaya ma waa baarid lagu baaray lagu barbar dhigay ilmaha isticmaala technology-ga iPad-yada telefoonada iyo TV-yada daawada ee waqtiga waliba daawada kale waqtiga badan ku isbeen garaya maxay tahay dhibaatada ay u leedahay number 1 dibka ay u leedahay waxa ay tahay cunuga ma lahaanayo attention wax uu kugu dhageysto ma lahaanayo waa number 1 killer marka ay imaato iskuulka marka ay imaato because waad ogtiin iskuulka marka cunugaaga tago waxa laga rabaa in uu fariisto waliba assignment 10 inta u fariisto uu ka shaqeeyo technology-ga dibka ay u geysato cunuga too much TV isticmaal ama too much iPad isticmaal ama too much telephone isticmaala ma lahaanayo fursad uu ku fariisto oo sida ilmaha ficiisa uu wax ku qoro cashirka loo dhiibana ku dhameeyo maxaa sababay because waxa sababay ilmaha waxa ay leeyihiin koriimadaas waxa ay sameynaysaa waxa jira si loogu talagalay child development-ga cunuga koritaankiisa si loogu talagalay in ay u qarto marka TV-ga iyo iPad-ka uu sameeyo waxa isticmaalaan wax la yiraahdo fast motion waxa wuxuu sameeyaa waxa baxaya waxba soo orday waxba ka caray waxba baxaya cartoon ba orday mid kala soo galay wuxuu sameeyaa cunuga attention-kiisi ayuu daciifinayaa wuxuu ka dhigayaa cunug aan fikir ka dhigayaa cunug aan hal meel ku fikiri karin wuxuu sameeyaa uu boodboodaya uu cashirka ma fikirayo macallimada ma dhageysanayo ama macalinka cunuga wuu maqan meel kale ay u maqan yaani asaga dhan wuu maqan cunug fikri kara oo wax sameyn kara ma aha marka dhibkaas ay u geysanayso waana la ogyahay iskuulka markay noqoto cunuga muhiimadda ay u leedahay inuu cashirka ka shaqeeyo macallimiinta personal ula shaqeeyo waxay dhaheen cunuga waxa uu sameeyay adiga dhan uu ku dhaafsay sabuurada ma fiiri ilmaha ma fiiri meel saas u leeyahay because waxa keenay maskaxdiisii ay waxay ku sameynaysaa sidii loogu talagalay uma korayo maxay kale technology-gu ku sameynaysaa waxa ay ku sameynaysaa cunuga waxa la dhaho problem solving waa very important skill waa problem solving marka imaata bini aadamka koriimadiisa cunuga problem solving waa dhibaato cunug inuu wax xaliyo yani wax markay ku imaadaan inuu garan karo step by step wixii loo sameeyay ama wixii la sameeyay because muu garanayo because weligii muu arkin muu daawanin waqti kuma isbeengay dadkani hore waxay sameyn jireen ilmuhu wax bay sameyn jireen activity bay gacanta ka sameyn jireen soo cunugaas wuxuu heli kari time uu ku barto maskaxdiisa slow ay ku tahay uu ku barto problem solving hadii dhibkan kugu imaado maxaa sameyn kartaa dhibkan maxaa u xalin kartaa cunuga TV-ga daawada ma helayo problem solving wuxuu samaa very quick hadii wixii uu ku xalin waayo oo himbu jabsanaya ama wuxuu sad buu dareemaya wuxuu noqonayaa cunug murugaysan because ma yaqaano muu sahlin chance-kaas maskaxdiisa ma helin deganaansho uu ku barto sida problem solving loo sameeyo sida dhib cunugaas hadii uu soo wajaho uu ku xalin lahaa dhibkaas maxaa ka mid noqon kara kaba soo qaad cunug yar oo walaalkiisa ayaa wax kula dhigay isla maskaxdiisa waxay u sheegaysaa cunugan ama uga foqo waxaan ama inuu kula dagaalamo cunuga problem solving si wuxuu helayaa sida uu arintan u imaatay uu ku xalin lahaa uu xalinaya laakiin cunuga TV-ga time-ka badan ku isbeen garaya malahan skill kala dhoo problem solving kara waa very important waa adoo dhib kula soo gudboonaado immediately maskaxdaada waxay ku sheegaysaa sida u xalinay ka waran hadii aad ka damage garayso cunugaaga problem solving ku sameyn lahaa haduu sa garan karin wixii soo wajahayso ku xalin soo dhibaato weyn ma waa dhibaato weyn sidoo la xalina sidoo kale waxa la yiraahdaa intrapersonal oo laag cunuga
ولاج وحو سمينا يا عنق ولال كيسة أما ضد كسود ولا نقملها وحو سمينا interaction بصنا interpersonal interaction بالله وحو سمينا يا ولا نقميا عنق ولا عيار يا وحو سمينا يا سيد الله لا عيار سيد وحلا لا سمايو سيد الله جو أتكيستو أصلاً ما سمينا because skill كاس ما هيستو أو ما بقرنا يا وحو ربع وحو برتي مركو ده TV اللي دي مركو إن وحيار لوجو قنعيو ما قرنا يو سيدا بيرس كيسا المها صاحبتيس المها اسكول كلا دغتا ولاليhiisa المها درسك سيدا لولا عيار because waxa uu isbaangareeya waqti badan ayuu wuxuu ku isbaangareeya kalinimo iyo aaladii iPad-ki ama computer-ki ama TV-ga ayuu waqti badan ku isbaangareeya waxaan ka hadlaynaa dhageystayaa TV-ha la daawan ma waa waqti badan waa waxa Soomaaliyeed u badan tahay waqti badan in cunugii loo dhiibo iPad telephone loo kala waxay waxa uu sameeynaya ما هليه المها فعيس وحو جعلانها انت ولا عياري لها انت وحيالك وحيسان لها وحو جعلانها ان ايباد لسكسي اما تليفون سوسكي ميد كلا صاحرته ميد very important يا صاحرته ميد اسو language وقرنيس language واللغة إله ربي الصومالها at English المها مسكحدوده marka uu dhasho uu yar yahay uu dhasho from adiga iska badhiba intuu ka qaan gaarayo language واحد لها جرو وليبا مركو يريهاي واحد جرا very critical واحد له very critical stage واحد لها جرا واحد واي stage كاس واحد from مركو ولا شيء و very critical واحد stage مهمة وحالة عنق كريمة وصامرة أد مهمة وهدي مسكريسين نلشيس عنقاس واحد وين بس كبدلي you have to listen critical stage كسمحيها مركو development أو عنق كريم حية و from birth to 3 years very important so وإن كتحدرت عنقاga waxa ku expose gareynaysa nooca expose gareynaysa yani nooca عنقاga waxyaalaha aad rabtid عنقاga inuu arko inuu daawado inuu la ciyaaro very 3 year kaas hadii uu macna daro kugu dhaafo wax weyn oo عنقا noloshiisa ah ayaa ku dhaafay because waa aad iyo aad maskaxda waa plan waa banaan tahay soo marka wax buu ku guraya waxaas ka waran adiga ma jeclaaneed calooshaada qashin in laga buuxsho waa maya cunuga maskaxdiisa saas waa marka 3 years kaasi waa important waa very important 3 year ka maxaa kamid ah waxa aad ku guraysaa wax la yiraahdo language oo effect gareynaysa technology-ga dib ay u geysanaysaa language-kiisa cunuga inaa u sixi weysa language-ka marka uu dhasho cunugaaga waa inaa hadal ku bilowda from hadalkaas waa inuu ku socdaa 3 year cunuga perfect waa marka uu luqadiisa صحة عنق وهذا كرا وديه كرا وحسن ربع درك إجا بدل وحبا إجا قلدن عنق جنب إدري وحن بيقسمه وقف بع وحس يقول ده هدي عاد أصحى عنق جالس وأديك نمبر 1 كيلر بعض النقطة because واحد كده أو حتى أو بدن تاي أو نبكة أو بدن أو هايستو هو يوم بدن أو صومالي أو أنت إجا دعوانا أو ولي بقار personal أو أقانو أو بدن أو community جنا بدن إن أي دبكة هايستو from birth critical stage عنقين العافية محيلي because عنقي iPad iyo telephone iyo TV بالغو مشغولين don't cry والله وحس don't cry دب هو telephone دب ولو ديبيا لكن ما يقرنيان 3 year كاس سيدا عنق النفتيسة او damage كرين كرتو 3 year كاس عنقاga technology way damage كرينيسا hadii aadan ka ilaalin oo hooyada bis u saarkin oo luqadiisa aala sixin horta from birth to 2 year waa no screen balha no screen from birth to 2 year one no screen cunuga dadka research ka sameeyay ilmaha yar yarka cunuga markuu dhasho 2 sano ilaa uu ka gaarayo maba arki karaba bal waqti loo daayay waqti daawada maskaxdiisa fasterka uu korayo uu informationka u pick up gareynayo looguma talagelin in uu taabto technology una arko waa inaad ka qarisaa soo marka 3 year kaas hadii aadan ka taxadirin dib badan ayaa la kulmaysa waa meesha aan rabo parenting inaan ka ataagarayo oon rabo inaan wax uga sheego oo si fiican ay dhageystaan waa 3 year ka ilmaha TV-ga iyo iPad-ka iyo telefoonka sanka laga gelinayo dibka ay u leedahay qofka marka cunuga u dhiibtid wuxuu sameeynaa luqadii ma baranayo because maanta oo dhan adigu telefoon saas dheh
inta saacadod uu taleefanka ku isbaan gareena muxuu ku isbaan gareena waa waqtiga aan kula hadli lahaa hooyo toyga ku ciyaari lahaa uu baran lahaa inaan technology-ga leeyahay tarbiyada aan u sixleed soo nooc aad taleefankaaga uga taxadari lahayd banaanka aad wadi lahayd ciid walaaqi lahaa adigu kula fariisan lahaa kula ciyaari lahaa hadalka aad bari lahayd marka taleefan u dhiibtay maxaad u maleynaysaa marka taleefankaas luuqad buu baraya waa maya waa cartoon wax uu ku hadlayo xataa ingiriiska xataa uu baranayo maskaxdiisa say u waayar garaynayso ama Soomaaliha kuwa meel kasto joogto ama Soomaaliya joog waayar garaynayo waa wrong information waa nooc qaldan ay u qaadanaya looguma talagelin human being ka bini aadanka inay noocaas oo kale u koraan looguma talagelin information ka say maskaxda u siinayo TV-gaasi looguma talagelin taleefanka indhaha looguma talagelin 3 yearkaas ismaami daddy time bis baa la dhahaa soo marka waxaan rabaa dadkeena inay ka taxadaraan oo ka ogaadaan in cunuga skill-ka luqadda uu ku barto ina adiga siisid mid organic ah ee adiga ka timid aysan ka imaanin TV-ga iyo meelo kale waa inaad kaloo ka taxadartiin damage-ka ay u leedahay TV-ga cunuga waxa waaye activity-ga uu sameyn lahaa ayuu la gareynayaa activity-ga cunuga waxa la activity waxyaabaha uu sameeyo ciyaarta playgan wax aqrinta orodka jimicsiga lugihiisa uu barayo inuu dhulka ku garaaco sida uu bari lahaa inuu boodo oo jam gareeyo sida uu bari lahaa inuu ball tuuro wax qabto maamadii wax la sameeyo jikadii tago wax siyaasada sameey activity baa la waa activity waxay u fiican tahay cunuga xibnihiisa soo u kori lahaa sida uu jirkiisa movementiga dhaqaaqa u baran lahaa kaba soo qaad cunug yar hadii aad iska fadhiyo maanta oo dhan aad bay ugu adkaanaysaa banaanka markuu ordo inuu istaago intuu ordo inuu champion sameeyo oo wax baa loo dhigaa cunuga iskuulka markii la waxayna ka bood balda inuu cunugaas ka boodi waayo inuu aad banooni ku turto cunugaas sax inuu u qaban waayo because technology bu maantaas u fadhiya waxa laga activity-gaas inuu miis gareeyo inuu soo sameeyo marka aad ay u muhiimsan tahay inaad ka fogaatid cunugaaga inuu maanta dhan too much fadhiyo oo meeshaas fadhiyo waana inala wadaagi doonaa waxyaabo badan oo in ka caawinaya insha Allah anigana personal ii shaqeeyo ilmahayga igu shaqeeyo oo si fiican igu shaqeeyo inala wadaago mowduuceenan intiisa dambe sida aad uga xadidi lahayd waxyaabaha ay isticmaali kartid hadaa waali tahay in aad cunugaaga ka xadidid technology-ga iyo iPad-ka iyo telefoonka iyo computer-ka sidii looga xadila sidii waliba xadid kale maana sida aad ugu bedeli kartid computer-ka iyo waxyaalahan sida aad ugu bedeli kartid waxbarasho adigoo u isticmaalayso nooc waxbarasho si cunuguna uu isku dareemaynin maanta mowduucan intaas ayuu noo joogaa I hope inaad ka hesheen oo fahanteen oo dadkana la wadaagtiin waxyaalaha ay leedahay cunuga ay ku ilmaha yararka ay ku samayso ee aaladan technology-ga internet-ka aad baad u mahadsantihiin daawashadiina please la wadaag asxaabtaada channel-kayga hadii aad ka hesho waxyaabaha aan ka hadlayo hadaa u malayso inay tahay waxyaalo community-geena anfacaya oo ay u baahan yihiin sidoo kale ha hilmaami subscribe share like iyo inaad comment ii soo qortid oo adiguna mowduuca ay la wadi because waan wada shaqeynayna hadii la wada shaqeeyana fikrado badan oo waxtar la ayaan dhaleena thank you maalin wanaagsan hameen wanaagsan qof kasta